الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتها بون داوديان كوسو دوادا قodobada ugu doorka xuran wararka aan maanta idin hayno. Haddii ay tahay markii kugu horeysay channelkan subscribe saaro, qaybta hoose ee commentiga aragtidaada nagu reeb, like-na dhac ku sii. Dowladda Federaalka ee Soomaaliya ayaa shaacisay in ay gargaar u dirayso magaalada Hargeysa ee xarunta maamulka Somaliland. madaxweyne Farmaajo oo kulan qadka taleefanka ah la yeeshay hogaamiyaasha dowladda ka jira Axmed Madoobe miyuu ka soo qayb galay. wasiir ka tirsan Hirshabeelle waa uu geeriyooday madaxweynaha maamulka Jubbaland waxa uu ku dhawaaqay 3 maalin oo baroor diiq ah kadib geeridii wasiirkii waxbarashada ee maamulkiisa. shaqaalihii kastamka magaalada Garowe ee gobolka Nugaal intooda badan waa la ceyriyay waxaana iminka ka taagan doodii ugu xooganeed. maxay tahay sababtu? waxaa idin soo gudbin doonaa akhbaaraad arrinkaasi la xiriira. qodobada kale ee xiisaha leh ee barnaamij wareedkan aad ku daawan doontaan qiyaari waxaa ka mid noqonaya ciidamada dowladda Federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ee ku sugan Koonfur Galbeed Soomaaliya waxa ay dhawaan bilaabayaan howlgalka dhanaa Al-Shabaab. degmooyinka ay ku wajahayeen waa kuwe waa idin soo gudbin doonaa. qodobadaas iyo kuwa kale oo faahfaahsan ayaan idin soo gudbin doonaa. ha yeeshee haddii aad nagu cusub tahay channelkan subscribe saaro, haddii aad hore noola sii joogtay qaybta hoose ee commentiga aragtidaada noogu reeb, like-na noo saar taasoo ah dhiirigelin. aynu ku bilownay madaxweynaha dowladda Federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa uu kulan video conference ah la yeeshay guddiga loo xil saaray ka hortagga cudurka coronavirus iyo sidoo kale madaxweynayaasha dowladda ka jira. kulankan oo muddo saacad ah qaatay ayaa lagu soo waramayaa in arrimo badan la isku weedaarsaday. madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa uu sheegay in uu aad ugu faraxsan yahay in uu ka soo qayb galo kulankaasi video conference-ka ah kaasi oo habeen waliba ay yeeshaan guddiga loo xil saaray ka hortagga bushiga COVID-19 ama coronavirus. madaxweynaha dowladda Federaalka ee Soomaaliya waxa uu bogaadiyay talooyinka caafimaad ee wasaaraddu jeedinayso iyo guddiga. sidoo kale waxa uu si aad u bogaadiyay sida ay dowladda ka jira ula shaqeynayaan dowladda Federaalka ee Soomaaliya, gaar ahaan wasaaradda u xil saaran arrimaha caafimaadka ee wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada. dadkii ugu badnaa ayuu soo ritay cudurkan coronavirus gobolka Banaadir, taasna waxa uu wacan badqab la'aanta iyo taxadar la'aanta ay muujinayaan dadka ku nool caasimadda. madaxweyne Farmaajo waxa uu hubiyay in gargaar loogu talagalay dadka degan dowladda ka jira la gaarsiiyay in kale. waxa uu weydiiyay mid waliba in gargaarkaasi uu soo gaaray. sidoo kale madaxweyne Farmaajo waxa uu amray in si degdeg ah gargaar loo gaarsiiyo caasimadda maamulka gooni isku taaga ku dhawaaqay ee Somaliland Hargeysa. madaxweyne Farmaajo waxa uu sheegay in gargaarkaasi la doonayo in guddigu ay gaarsiiyaan maamulka Somaliland. arrinkan wali kama aysan hadlin shixnada loo dirayo, ha yeeshee waxaa la filayo in shixnad daawooyin iyo sidoo kale neefsiye isugu jirta dhawaan loo daabulo, taasi oo badankeed ka timid dowladda Turkiga isla markaana uu soo dhiibay madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan. dowladda Federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa ay dowladda ka jira u qaybisay gargaar caafimaad kuwaasi oo la doonayo in looga hortago caabuqan sida weyn dunida u saameeyay ee coronavirus. qaarkood ayaa ilaa iyo hadda waxaa lagu soo waramayaa in si wanaagsan ay u isticmaaleen isla markaana isbitaallo iyo goobo karantiil ay sameeyeen sida Puntland iyo Jubbaland, Koonfur Galbeed, Galmudug iyo Hirshabeelle. waxaana la soo warinayaa in hadda dowladda Federaalka ee Soomaaliya ay ku howlan tahay sidii loo gaarsiin lahaa Hargeysa shixnadaasi daawada ah ee uu amray in loo geeyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. dowladda Federaalka ee Soomaaliya ayaa dhowr jeer oo hore waxa ay sheegtay in lacag gaarayso $2 milyan ay ugu talagashay ka hortagga cudurkan dunida saameeyay ee coronavirus, kaasi oo ilaa iyo hadda loo caalayahay. lacagtaasi ayaa intooda badan waxaa loo bixi doonaa dowladda ka jira si ay u sii gaarsiiyaan dadkooda si looga hortago cudurkan dunida sida aadka ugu sii fidaya ee coronavirus ama COVID-19 loogu magac daray.
wasiirkii hubka dhigista maleeshiyaadka dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa lagu soo waramayaa inuu geeriyooday. wasiirka oo dhowrkii toddobaad ee ugu dambeysay xanuunsanayay ayay wararku sheegayaan in xaaladiisu ay ka soo dareysay maalmihii ugu dambeysay. madaxda dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa ka tacsiyay geerida ku timid wasiirka, waxa ayna ka sheekeeyeen markii uu noolaa xaaladiisa sida ahayd iyo habdhaqankiisii wanaagsanaa. sidoo kale wasiirkan waxa uu ka mid ahaa mudanayaasha baarlamaanka ee maamulka Hirshabelle, waana shaqsigii labaad ee cudurkan coronavirus uu dilo oo wasiir ah isla markaana ka tirsan dowlad goboleedka Hirshabelle. waxaa la filayaa in maalmaha la soo aadan dowlad goboleedka Hirshabelle si weyn ay kaga hadlaan bushigan sida aadka ugu sii faafaya isla markaana sida sabixa u sii galayo sida aan xogaha ku helayno. ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa midowga Afrika AMISOM ee ku sugan deegaanada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa la soo warinayaa in ay hadda sameynayaan dhaqdhaqaaqii ugu dambeeyay oo ay ku doonayaan inay al-shabaab uga saaraan deegaano dhowr oo hadda gacanta ay ku hayaan. deegaanada ay ku wajahan yihiin ciidamada midowga Afrika AMISOM gaar ahaan kuwa Ethiopia iyo kuwa xooga dalka waxaa ka mid ah Dinzoor oo hadda al-shabaab ay ku xoogan yihiin deegaanada ku xeeran. ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya kuwa midowga Afrika AMISOM ee ku sugan gobolada Bay iyo Bakool ayaa dhowrkii sano ugu dambeeyay waxayna sameeyeen wax howlgal ah oo al-shabaab looga saarayo deegaanada ay gacanta ku hayaan. taasna waxa uu wacneed qorshe xumo la tirsanayay oo laba dhinac ka jirtay. madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Maxamed Xasan Laftagareen ayaa kolkii uu ahaa musharaxa madaxweyne waxa uu ballan qaaday in al-shabaab uu ka xoreynayo dhammaan deegaanada ay gacanta ku hayaan ee hoostaga maamulkiisa. tan iyo markii uu qabtay hoggaanka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ma jirin deegaano ama degmooyin dhacgobada Bay iyo Bakool oo laga saaray al-shabaab. howlgal aan sidaas u buurnayn ayaa laga sameeyay gobolka Shabeellaha Hoose, waxaana ciidamada xoogga dalku ay la wareegeen deegaano Jannaale ay ka mid tahay. madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Maxamed Xasan Laftagareen ayaa hadda doonaya in uu bogaadiyo howlgallada la sameynayo ee ka dhanka al-shabaab, waxaana sidoo kale wararku ay sheegayaan in ciidamo si gaar ah loo tababaray oo Koonfur Galbeed ay leedahay ay qayb ka ahaan doonaan howlgallada la doonayo in la qaado. magaalada Kismaayo ee xarunta maamulka Jubbaland haddii aynu eegno, madaxweynaha maamulkaasi Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa ku dhawaaqay 3 maalin oo baroor diiq ah kadib markii uu geeriday wasiirkii waxbarashada ee maamulkaasi. wasiirka ayaa xaalad caafimaad ugu geeriyooday dalka India, waxaana uu ka mid ahaa wasiirada ugu waxqabadka wanaagsan golaha wasiirada ee shaqeeyay ee madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe. wasiirka ayaa xanuun soo wajahay awgiis waxaa loogu qaaday wadanka Hindiya halkaasi uu ku geeriyooday. wasiirka ayaa waxa uu wax weyn ka qabtay xaaladaha waxbarasho ee Jubbaland, waxaana in muddo ah uu macallin ka ahaa ama uu maamulayay iskuulaad ku yaala magaalada Kismaayo ee maamulka Jubbaland sida ay sheegeen rag saaxiib la ah oo ka tacsiyay sida Faarax Sheekh Cabduqaadir oo iskuul halkaasi ku yaala isla yeeleen ka hor 25 sano. magaalada Kismaayo ee maamulka Jubbaland iyo deegaanada kale ee gacanta uu ku hayo maamulkaasi ayaa la amray in calanka maamulkaasi la dejiyo ama hoos loo dhigo, isla markaana baroor diiq la galo sida uu sheegay madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe. shaqaalaha kastamka magaalada Garowe ee gobolka Nugaal ayaa intooda badan waxaa lagu sameeyay shaqo joojin, iyaga oo iminka qaarkoodna la sheegay in la doonayo in waaran loo jaro lagu soo qabanayo. arrimahan ayaa waxaa ka dambeeyo mas'uul ka tirsan dowlad goboleedka Puntland kaasi oo doonayo sida la sheegay in uu shaqaalaha kala irdheeyo. qaar ka mid ah shaqaalaha oo warbaahinta la hadlay ayaa waxay sheegeen in ay dalbanayaan in arrimahan la soo farageliyo isla markaana ay tahay baadil cad oo qaarkood kiis aan lahayn loogu saarinayo sida ay sheegeen. maamulka Puntland ayaa dhowr jeer oo hore waxaa ka dhacay shaqooyin kan la mid ah. guud ahaan khiyaari warkii waa nageynta haddii aad nagu cusubtaa channelka subscribe saaro oo ka mid noqo asxaabta nagu xiran.